Asalaamu calaykum jalayaal. Horay ayaad u garanaysay waxa kuu wanaagsan iyo waxa aan kuu wanaagsanayn. Waad ogtahay in cuntooyinka qaar aysan caafimaadkaaga u wanaagsanayn. Waadna ogtahay isticmaalka badan ee baraha bulshada in uusan wax faa'iido ah kuu lahayn. Laakiin su'aashu waxay tahay maxaa iskaga dayn la'dahay waxyaabaha aad ogtahay in aysan kuu fiicnayn. Haddii aad si guud u fahamsan tahay caadooyinka xunxun maxaad uga dheeraan la'dahay. Ma kula tahay in aadan qaadin waddadii saxda ahayd ee aad iskaga dayn lahayd caadooyinkaas xun. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waddada saxda ah ee lagu burburin karo caadooyinka xun iyo siro kuu sahlaya in aadan dib ugu laaban caadooyinkii xumaa ee aad lahayd ee aad iska dhaaftay. Waxaan kugu soo dhaweynayaa muuqaalkan iyo YouTube-kaanba. Haddii aad doonaysid in aan kala taliyo arrimaha waxbarashada ama horumarinta shakhsiga waad ila soo xiriiri kartaa. Haddaba si aan u fahno muuqaalkeenna waxaan samaysanaynaa qof magacuyaal ah. Tusaale waxaan kasoo qaadanaynaa nin la yiraahdo Faarax. Faarax waxa uu leeyahay caadooyin xunxun ayuu leeyahay oo ay ka mid tahay in uu game dheelo waqtigiisa inta badanna uu baraha bulshada ku qaato. Sidoo kale dadka uu ka cabto caadooyin noocaas ah ayuu leeyahay. Dhanka kale Faarax waxa uu leeyahay hami sare oo ah in uu ganacsade noqdo, dhaqaale badanna uu sameeyo. Marka Faarax waxaan leenahay waa qof maskax falluuq qaba miyaan leenahay. Dhankaana caadooyin xun buu ka leeyahay, dhankaana hami sare ayuu ka leeyahay. Waa og yahay dhibaatooyinka uu ka dhexlahayo caadooyinkiisa xun. Faarax wuu og yahay. Sidoo kalena wuu og yahay in aysan ka caawinayn gaarista hadafkiisa. Haddaba maxaa Faarax u xal ah marka? Si guud Faarax wuu jeclaan lahaa inuu caadooyinkan ka fogaado, laakiin waxaa jira waxyaabo ku qasbahaya. Mid ka mid ah waxyaabaha ku qasbahaya waxaa ka mid ah in bini'aadamku uusan ku qancin waxyaabaha kobcoodu ama natiijadoodu ay dhaqso aysan soo bixin ama aan dhaqso loo helin. Tusaale waxaa jira wax la dhaho delayed return. Waxaa laga yaabaa in aan hawl ka shaqayno sanado badan iyadoo oon markaas waxba naga soo gelayn. Amase waxaa laga yaabaa in aan jirkeena jimicsi aan ku samayno ama jimicsi aan samayno sanado badan inagoo jirkeena isbedelin. Daahitaanka natiijadaas ay daahayso ayaa waxaa dhacda in inta badan uusan bini'aadamku uusan u dulqaadan karin ama uusan ku qancinba. Dhanka kale waxaa jira wax la dhaho instant return oo ah in dhaqso natiijo aad dareentid. Caadooyinka xunxun markaas ayaa moodaa in aad raaxo dareemaysid, laakiin saameyntoodu way soo daahdaa oo dib dambe ayay dhibaato ka geystaan. Qofka sigaarka cabaya waxaa laga yaabaa in uu u dhinto sanado badan kadib, laakiin hadda uu dareemayo in uu ku raaxaysanayo. Dad badan ayaa waxaa laga yaabaa in baraha bulshada ay iskaga jiraan micno darro oo hadda waxaa laga yaabaa inay ku dareemayaan qosol iyo shaatiro iyo nasiino, laakiin ficooda ayay ka haraan oo xilli dambe ayay soo baraarugaan. Dad badan ayaa game iska dheela oo si ay raaxo u dareemaan, laakiin waqti badan ayaa halkaas uga khasaara. Markaan waxaan filayaa in aad ogaatay waxyaabaha nagu sababa in caadooyinka xun aan samayno. Aan u gudubno sidii aan iskaga dayn lahayn. Number 1 si aad caadooyinka xun iskaga joojisid waa inaad samaysaa wax loo yaqaano isku bedelid. Hadda aan u laabano mudana Faarax. Hadda Faarax waxa uu bilaabayaa safarkiisa ah inuu ka taqaluso caadooyinkiisa xun. Soo qaado warqad iyo qalin si aad u martid waddada uu rabo inuu Faarax maro. Faarax ugu horreyntii waxa uu qoray dhammaan caadooyinka ka hortaagan inuu hadafkiisa xaqiijiyo oo noloshiisa ay isbedesho. Number 1 waxa uu qoray Faarax caadooyin xun u leeyahay waxa weeye inuu game dheelo. Number 2 waxa waaye in uu baraha bulshada waqti badan ku qaato. Qodobka labaad saddexaad waxa waaye in uu dadka kale u ka cabto. Faarax wuxuu qorayaa hadda maxaa caadooyinkan ku sababa. Gameka waxa ku sababa waxa u dheelaa marka uu stress dareemo, xogaa yar oo stress markuu dareemo ayuu gameka dheelaa. Baraha bulshadana wuxuu soo galaa markuu cajis ama xogaa yar daal u dareemo. Dadka kalena wuxuu ka cabtaa marka uu wax ku guul dareysto. Hadda Faarax waxa uu qorayaa caadooyinka uu ku bedeli karo caadooyinkiisa. Gamekii wuxuu go'aansaday in uu ku bedelo jimicsi inuu sameeyo iyo inuu masaajidka salaadaha ku tukado 5 salaadood. Maxaa laga yaabaa in stresskii uu meeshaas uga baxo. Baraha bulshada uu waqti badan iskaga qaadanayana hadda Faarax waxa uu go'aansaday in uu ku bedelo in uu buug akhriyo, daawado muuqaalo wax u tar leh ama uu course cusub barto. Dadka kacbashadiisana hadda Faarax waxa uu go'aansaday in uu ku bedelo in uu asagu nafsadiisa mas'uuliyadda naftiisa in asagu uu 100% qaado. Wax kastoo ka qaldamana eeda koobaad in asagu
uu dusha iska saaro. Ma is leedahay Faarax caadooyinkii xumaa ee uu lahaa dib dambe uma samaynayo? Faarax intaas oo ku filnaan weysay. Intuu markii horeba xanaaqay ayuu dhammaan tuuray barahii bulshada, geymkii iyo wixii dhammaa. Oo dhowr maalin ayuu isku dayay in uu la qabsado ahdaaftii uu qortay iyo caadooyinkii. Laakiin dhowr maalin kadib wuu ku soo shubtay. Hadda Faarax caqabad hor leh ayuu wajahayaa. Laakiin xal kale ayuu helay oo ah inuu naftiisa abaalmarin u ballan qaado. Markasta uu sameeyo caadooyinkiisa wanaagsan, wuxuu naftiisa u ogolaanayaa in uu nus saac baraha bulshada ku qaato. Mar kale ayuu caadadiisii xumayd uga faa'iidaystay in uu nafsadiisa abaalmarin uga dhigo. Hadda Faarax iyo adiguba habi ayaa tihiin. Waadna ku faraxsan tihiin habka cusub ee aad caadada xun iskaga joojiseen. Caadooyinka dadka guuleysta waxaa ka mid ah wax akhriska. Waxaa jira muuqaal aan ka diyaariyey faa'iidooyinka akhriska. Linkigiisa hoos ayaan kuu dhigayaa. Ilaa muuqaalka xiga. Bye bye.